wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cismaan Dube ayaa halkan oo ah xarunta wasaaradda warfaafinta waxa uu ku qabtay shir jaraa'id. shirkaasi jaraa'id waxa uu markaa kaga hadlay go'aano ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya kuwaas oo ah 3 qodob. wasiirka ayaa markaasi go'aamada ka soo baxay waxa uu ku sheegay ama qodobka ugu weyn waxa uu sheegay inay tahay in markaasi fasax muddo 2 isbuuc ah markaasi ay sii qaadan doonaan iskuulaadka ama goobaha waxbarashada. waxa uu sidoo kale faray dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha Soomaaliya iyo caasimadaba inay markaa ay qaataan talaabooyinka ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ee looga hortagayo coronavirus. go'aamada ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan guddida qaabilsan arrimaha coronavirus ee COVID-19 markii aan dhageysanay khubarada iyo aqoon-yahanka iyo sayniska iyo dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka intuba waxa ay sheegeen inkastoo aad loo dadaalay aad loo shaqeeyay lagu dadaalay afxirka iyo kala fogaanta iyo wasaaradihii iyo hay'adihii dawladda oo fasax galay iyo iskuuladii iyo jaamacadihii iyo madrasadihii oo waqtigii go'aamadii hore qaatay haddana in khatartii coronavirus wali ay jirto haddii khatartii wali jirto macnaheedu waxa weeye inaynaan odhan karin intaan 3 usbuuc dalka xidhnay haddana ha isu soo baxo dabadeedna xanuunkii mar labaad uu dib u soo laabto sidaa darteed dawladdu waxay xoojinaysaa go'aamadii hore uga soo baxay 2 Maarso 3 Maarso ee ahaa in lagu dhaqmo si loo badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed waa ogtihiin sida uu inoo saameeyay hadday caasimadda tahay iyo hadday isteediyada tahayba sida uu inoo saameeyay corona waxaan rabnaa in lagu dhaqmo go'aamadii hore ee ahaa in la kala fogaado ahaa in la kala durko ahaa in afka la xidho ahaa in qof waliba halkiisa xil isku saaro goobaha shaqadu sidii bay sii ahaan doonaan hay'adaha dawladda iyo wasaaradaha iyo goobaha la isugu yimaado sidoodii bay u sii ahaan doonaan ay ku sii jiri doonaan fasax 2 usbuuc. wasiir Dube ayaa ugu dambeyn waxa wax laga weydiiyay arrimaha gobolka Gado ciidamada lagu daabulayo iyo sidoo kale sida u aragto xukuumadda golaha badbaado qaran oo Muqdisho looga dhawaaqay. dawladdu waxay diyaar u tahay wherever meel kasta ha ahaato xataa haddii la yiraahdo badda dhexdeeda kaalaya badda dhexdeeda waa imanaynaa si dalku doorasho waad haddii la yiraahdo badda dhexdeeda ha lagu shiro waxaan diyaar u nahay si dalku doorasho waado inaanu nimaadno doorasho waxay xasuusteen isbahaysiyo iyo badbaadooyin dalkan god dheer ku riday xurmo badan iyo karaamo badan baan u haynaa madaxweynayaashii hore dalka waxay mudan yihiin yani stage-ka ugu sarreeya weligaa maad maqashay aadan cadda wax laga sheegaya ama cabdiqaasin wax laga sheegay madaxweyne wuxuu leeyahay hore maamuus la yaab leh laakiin mar rabno in isbahaysiyo doorashadiida aan ku dhex aragno madaxdayda mar rabno inaan ku aragno meelo la yaacyaacayo madaxdayda hore waxaanu rabnaa madaxdayda hore in laga barakaysto oo ay fadhiistaan meel oo la ixtiraamo madaxweyne kastana saasaan rabnaa inuu mustaqbalkiisu noqdo mustaqbal qurux badan marka waxaan u arkayaa wax aan inoo cuntamaynin madaxweynayaasha isteediyadu taladiiba iyagaa gacanta ku haya doorashadii amnigii siyaasaddii sababaad markaa way joogaan isteediyadii kale haddaan ka imi madaxweyne Hirshabeelle Cali Guudlaawe haddaan ka imi wuxuu arkayaa in dalkan doorasho ka dhacdo wuxuu sugayaa amniga wuxuu ka fakerayo Cali Guudlaawe ka shaqaynayay fatahaadaha guga soo socda ayuu hadda ka shaqaynayay waxaan rabnaa madaxweynayaal state oo ka shaqaynaya wixii loo doortay. Maxamed Yaxya Jiinow warbaahinta Nation Muqdisho.